maanta waxaynu ka hadli doonaa guuldarrada. ma jirto wax la yidhaahdo guuldarro, waa laba mid uun, inaad guulaysatay amba inaad wax baratay. guuldarradu waa casharka ugu muhiimsan ee lagu bartay waddada loo maro guusha. maxaa yeelay qofku markuu guuldaraystay waxuu bartay gafafkiisa iyo khaladaadkiisa uu ku guuldaraystay, kadibna baadhitaan ayuu samayni. marka ay u soo baxdo amba ay u kala caddaato sababihii dhaliyay guuldarradiisa, waxauu ka weecanayaa waddadii hore ee uu ku guuldaraystay. waxa aanu qorshaysanayaa wadda cusub, taasi oo guul gaadhsiisa. aynu soo qaadano sheeko xigmad leh oo khusaysa guuldarrada. wiil ayaa waxa uu weydiiyey nin, maxaa kuu suurageliyey inaad guulaysato? guulaystihii ayaa wuxuu ugu jawaabay, waxa ii suurageliyey go'aan saxan oo aan qaatay. wiilkii ayaa weydiiyey, go'aan saxan sidee ayaad ku heshay? guulaystihii ayaa ugu halceliyey, waxaan ka helay khibrad iyo waayo aragnimo aan kasbaday. wiilkii ayaa waxa uu weydiiyey, oo khibradda halkee ayaad ka heshay? guulaystihii waxa uu ugu jawaabay, waxaan ka helay guuldarradaydii ama fashilkaygii hore. waa maxay dulucda sheekadu? ma dhihi karnaase guuldarradu waa xirfad. haddaba adigu akhriste amba dhegayste ma ka qaadataa guuldarradaada duruusta ku jirta, sida inaad fahanto siday ku timid iyo inaad mar labaad iska ilaaliso. haddii aad guul doonaysid waa in aad ka faa'iidaysatid duruusta guuldarrada ku jirta. ninka guul soo hoyn doonaa wuxuu ka faa'iidaystay khaladaadkiisa hore, wuxuuna isku dayay inuu waddatii ka duwan qaado. gaadhidda guulaha adeegsanayso waxaa ka horeeya guuldarrooyin fara badan, caqabado iyo hadimooyin. haddaba markay kaa hor yimaadaan caqabadahaasi, ha niyad jabin, hana quusan. isku day inaad xaliso caqabad kasta si tartiiba, adiga ayaa u guulaysane. ogsoonow, guuldarradu ma ahan inaad kuftid, balse waa inaad diidid inaad kor u kacdid. guuldarradu waa jidka guusha. kuma suurtagal aha inaad ka cabsatid guuldarrada, waayo waa jidka keliya ee kugu rida guusha. guuldarradu waa jidka ugu weyn ee lagu gaadho guusha. waa haddii aadan quusan, iskana ilaalisin niyad jabka. bal aan kaaga sheekayo dadkii taariikhda galay iyo guuldarrooyinkii markii hore ay la kulmeen iyo sida ay uga gudbeen. Albert Einstein wuxuu dhashay 14 Maarch 1879. wuxuu ku dhashay Jarmalka. hooyadii iyo aabihii waxay ku dareen iskuul, laakiin waxa uu ahaa dib jir. waxa uu ku dhacay imtixaano aad u fara badan. macallimiintiisuna waxay maalin kasta ka caban jireen dabeecad xumidiisa iyo dibjirnimadiisa. waxa uuna hadalka caadigaa bilaabay marka uu ahaa 4 jir. yaraantiisii waxba muu akhrin karin ilaa uu 7 sano gaadhay. sida wiilkii sidaas ahaa ee sidaas soo guuldarraysan jiray, waxa uu soo saaray qawaaniinta cusub ee fiisigis ah. wuxuuna sidoo kale soo saaray hubka casriga ah ee loo yaqaano nukliyarka. muuqbaahiyayaasha, kombiyuutarada iyo aalado badan oo aynu maanta isticmaalno waxay ka soo burqadeen aragtiyo fiisigis ahaa oo uu isagu lahaa. waxa uu noqday saynisyahankii qarnigii tegay. 2. Michael Jordan waa ciyaaryahan kubadda koleyga caan ku ah, gaar ahaan horyaalka Championka ee loo yaqaano NBA. waxaana uu ku guulaystay 6 jeer oo horyaalka NBA, 5 jeer oo MB iyo MVP, iyo 4 jeer oo MVP All-Star. laakiin markuu yaraa wuxuu la soo kulmay guuldarrooyin fara badan. waxaa laga heliyay kooxdii uu ciyaari jiray markuu dugsiga sare dhigan jiray. taasina waxay sababtay inuu muddo gurigooda qolka intuu hoosta iskaga soo xidho ka soo bixi waayo, isagoo ooyin maciinsaday. dhiirigelintii uu naftiisa siiyey dadka kalena ka helay ayaa maanta ka dhigtay ciyaaryahanka ugu caansan kubadda koleyga ama basketballka. mar la weydiiyey sida uu ugu guulaystay iyo sababihii ka dambeeyey inuu guulaysto, ayuu yidhi, waxaan soo guuldaraystay marar badan, taasina waxay sababtay inaan guulaysto. 3. Henry Ford wuxuu noloshiisa ka soo bilaabay meel hoosaysa. in ka badan 5 jeerna wuxuu sheegay inuu kacay oo uu ku guuldaraystay hiigsigiisii.
dadaal iyo isagoo aan quusan ayuu ku hantay inuu yeesho shirkadda gawaarida ugu fiican adduunka ee Ford soona saarta malaayiin baabuur sanad kasta. wuxuuna guuldarada ka yidhi guuldaradu keliya waa fursad labaad si aad mar labaad u bilowdid, balse markan xariifnimo dheeraada ayaa laga rabaa. 4 Stephen King waxa uu ahaa macallin dhiga iskuul ku yaala baadiyaha lagu magacaabo Maine. buuggiisii ugu horeeyay ee uu qoray uguna magac daray Iconic Trailer Carrier waxaa diiday ilaa 30 shirkadood inay daabacaan. intaa kadib waxa uu ka quustay, waxa uuna ku tuuray buuggiisii khashinka, laakiin xaaskiisii ayaa khashinka buugga ka soo ururisay oo u dhiibtay kuna tiri isku day markan 31aad oo ku dhiirigelinaysa in uuna weligiis dhiiban. markii 31aad ayuu guulaystay in loo daabaco. maanta Stephen King waa qoraa caalamka oo dhan laga yaqaan, buugaagtiisana loogu iibsiga badan yahay. wuxuuna wax ka qoraa sheekooyinka uu isagu alifo ee loo yaqaan noveliska. maanta halkaas ayay inoogu joogaysaa. la soco qaybta xigta. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.